sidee ayay dadka taajiriinta ah taajiriin ku noqdeen? mid baa dhaxal ku helay, mid baa dhididkiisa shaqaystay, mid baa laga yaabaa in uu nasiib ku helay, xagga kalena uu ku helay maskaxdiisa. waayo maskaxdaadu waxaad ku helaysaa wax weyn. waxaan isla eegaynaa qiso ku faaftay social media oo tusaale u ah in caqligaada wax ku heli kartid. waxay qisadani ka dhacday New York, weliba waxayna qisadu ka dhacday bangi ku yaala Manhattan. waxayna qisadu ku bilaabatay nin Chinese ah oo soo galay bangi, weliba xafiiska maamulaha, kana dalbaday caawimaad. soo dhaweeyay maamulihii isagoo lagu magacaabi jiray Tom. wuxuuna ninkii u sheegay in uu dhibaatooyin dhaqaale ula tacaalayo una baahan yahay in uu tago China muddo 15 maalmood ah si uu lacagta uga soo qaato. wuxuuna weydiistay deyntan $1,000. wuxuuna sheegay in uu ku soo celinayo lacagta 15 cisho iyo weliba khidmadda bangiga 15 cisho kadib. wuu ogolaaday maamulihii bangigu, wuxuuna soo hordhigay liis warqad ah oo la iska rabo in la buuxiyo damaanad ahaan lacalla hadduu soo celin waayo lacagta. laakiin ninkii Chinese wuxuu ku jawaabay, ma haysto waxaan gaadhigayga iyo liisankayga aan ka ahayn. wuxuu maamulihii u sheegay inay qasab tahay in uu damaanad dhigo oo caddayn u ah in uu lacagta keenayo, haddii kale wax lagu qaban karo ma jirto. markii xaggaa la marayay ayuu fikiray ninkii, isagoo ku wareejiyey furihii gaadhiga. wuxuuna u sheegay in gaadhigiisu uu yahay Ferrari, warqadihiisuna ay dhammaystiran yihiin. wuxuuna u sheegay in uu u haysan karo damaanad ahaan intuu lacagta ka soo celinayo. wuxuu la yaabay maamulihii bangiga wuxuu sameynayo ninkani, wuuna saxeexay waraaqadihii. waxaa farta laga saaray lacagtii. ninka bangiguna wuxuu la wareegay gaadhigii. waxaa isla markii ku jeesjeesay shaqaalihii bangiga iyagoo leh, ma wuxuu ku bedelanayaa gaadhi qiimihiisu gaadhayo $250,000, lacag dhan $1,000. waxaa lasoo dhaafay 14 cisho, waxaana harsan 1 cisho. shaqaalihii bangiguna waxay xiiso weyn u hayeen in ay ogaadeen meesha ay ku dhammaanayso qisadani. maalintii 15aad waxaa soo gaadhay ninkii isagoo aaday xagga iyo ofiska maamulaha, wuxuuna u dhiibay $1,000 iyo faa'iidadii bangiga oo u dhigmaysay $5.41. waxaana loo dhiibay dhowr dukumeenti si uu u saxeexo, taas oo macnaheedu tahay inuu dhiibay deyntii. waxaana gaadhay waqtigii gaadhigiisa la wareegi lahaa, isagoo loo dhiibay isla markiiba furihiisii. markuu sii bixi rabay ayuu maamulihii weydiiyey, sidee ayay macquul ku tahay adigoo taajir ah inaad $1,000 deyn ahaan u qaadatid adigoo weliba ka tegay gaadhigan qaaliga ah? wuu dhoola caddeeyey ninkii Chinese-ka ahaa, wuxuuna ugu jawaabay, haa, taajir waan ahay, laakiin ii sheeg meel Manhattan ka mid ah magaalada Manhattan aad baabuurkaaga ku baarkimi kartid, weliba si ammaano ah, si safe ah, oodan ka cabsanayn in ay garaaf soo gaadho. waayo baabuurta Manhattan saacaddii waxaa $30 lagu baarkimo. baarkinkii waa $30 saacaddii. ii sheeg ayuu ku yidhi meel aan ku baarkimi karo gaadhigayga 14 cisho, weliba lacag dhan $1,000, anoo weliba ka walwalayn in ay garaaf soo gaadho. maamulihii madaxa ayuu qabsaday. waxaan dhihi karnaa waa nin caqli badan, waayo wuxuu baarkimay gaadhigiisii meelaha ugu ilaalada adag magaalada muddo 14 cisho ah, weliba qiimo aad u hooseeya. waxaan dhihi karnaa sidoo kale caqligiisa kagamuu fikirin sida lacag loo shaqaysto, ee wuxuu ka fikirayay sida lacagta loo kaydsado. intaas ayay ku eg tahay qisada maanta. fadlan haddaad cusubtahay subscribe saar, videogana like saar, asxaabtaada la wadaag. waqtigu ha idin wacnaado. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.